Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti waxaan wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad daafaha dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaado Zack Films. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biiri oo subscribe saar. Sidoo kalena gambareelka furo si aad ula socoto muuqaalada maalinlaha ah ee aan halkan soo gelin doono. Filimkeena maanta waa mid aad u xiiso badan laguna magacaabo The Grey Man. Wuxuuna ku bilaabanayaa iyadoo nin abukaata ah laguna magacaabo Donald Potosai uu ku qancinayo dambiile xabsi ku jira inuu haysto fursad uu bannaanka ugu bixi karo, lana qiimeeyey qaab toogashadiisa iyo welibana xirfadiisa dagaal, taasoo ah mid lagu qancay. Ugu dambeyntii wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu ka mid noqon doono ciidamada CIA-da kuna shaqayn doono barnaamij lagu magacaabo Sierra. Intaa kadib, muuqaalka ayaa isku rogayo 18 sano ka bacdi Bangkok, halkaasi uu ku sugan yahay aktarka filimka laguna magacaabo Number 6. Waxaana intaa kadib soo wacaya xarunta oo lagu magacaabo Denny, isagoo u sheegaya in bartilmaameedku magaciisu yahay gaariga cuntada, loona baahan yahay inuu kasoo qaada waxyaabaha uu gacanta ku hayo. Kadib waxaa la gaarayaa xilligii ugaarsiga la fulin lahaa. Waxaanu soo qaadanayaa qorigiisa isagoo iyadoo la gaaraya waqtigii uu fulin lahaa mishinka, balse inta uu fulin ka hor waxaa kasoo dhexgelaya wiil yar isagoo ka joojinaya inuu rido xabadda, welibana ka gaabsanaya. Taasina waxay ka caraysiinaysaa Denny, isagoona aad uga caroonaya inuu fulin waayey mishinka, isagoo mid u ugaarsanaya raggii ilaalinayay, ugu dambeyna gacanta ku dhigaya gaariga cuntada. Waxayna bilaabayaan inay isdagaalaan, balse gaariga cuntada ayaa bilaabaya inuu sheego dhammaan akhbaarta ama macluumaad ku saabsan Number 6, isagoo u sheegaya xarunta iyo guutada uu ka tirsan yahay iyo welibana lambar aqoonsigiisa. Waxaana intaa kadib bilaabaysa dagaalkooda iyadoo ugu dambeyn Number 6 uu guuleysanayo. Waxaana ogaanaynaa in gaariga cuntada uusan ahayn nin dilaa ah amaba dambiile ah, balse uu ahaa mid iyaga ka tirsan laguna magacaabi jiray Number 4. Wuxuuna intaa kadib u sheegayaa in sababta loo ugaarsanaya ay tahay caddaynta uu gacanta ku hayo, wuxuuna siinayaa flash. Intaa kadib Number 4 waxaa soo wacaya madaxa xarunta Denny, isagoo u sheegayo in ay jiraan ama laga yaabo inuu wax ka qaaday ninkaasi, haddii ay jiraanna uu kusoo wareejiyo sida ugu dhaqsiyaha badan, maadaama ay tahay arrin xasaasi ah welibana khatar ku ah jiritaanka kooxda Sierra. Balse Number 6 ayaa u sheegaya in aysan jirin wax macluumaad ah ama shay ah uu ka qaaday amaba uu ka helay gaariga cuntada. Wuxuuna u baxayaa si uu usoo ogaado akhbaarta ku duugan flashkan, waana sababta la isku dilayo midba midka kalena uu ugaarsanayo. Wuxuuna aadayaa goob playstation ah laguna ciyaaro geemamka, isagoo kadib daawanaya dhammaan cadaymihii laga hayay Denny. Wuxuuna ogaanayaa in Denny uu yahay dambiile. Dhinaca kale, Denny uu ogaanayo in Number 6 uu gacanta ku hayo dhammaan macluumaadkii amaba sirtii. Intaa kadib bilaabaya in uu u yeero nin lagu magacaabo Loud, balse iyaga ka tirsan, halka Sarah ay kasoo horjeesanayso in Loud uu fuliyo mishinkan iyagoo isku khilaafaya, balse Denny ayaa ku madax adeegaya in ninkaasi uu yahay kan kaliya ee kasoo baxsan kara mishinkan. Sarah oo arrintani aad uga xanaaqsan ayaa ugu dambeyntii lagu qancinayaa inay la shaqayso Loud si ay uga qayb qaadato mishinkan. Kadib markii Loud loo sheegay xaaladda iyo sida ay wax u jiraan, wuxuu bilaabayaa inuu weydiiyo dhinac uu ka nugul yahay Number 6, iyagoona u sheegaya inuu jiro hal qof oo qaraabadiisa ah, kaasi oo ay saaid iskugu dhow yihiin sida wiil iyo aabihiisa oo kale. Halka Number 6 uu la hadlayay adeerkiisa amaba qofka ugu jira booska aabihiisa, isagoo u sheegaya in ay xaaladda aad uga cakiran tahay uuna u baahan yahay inuu dhinaciisa yimaado. Ugu dambeyntii markii ay soo baxaan, waxaa gacanta lagu dhigayaa gabadhii uu dhalay. Kadib loo sheegaya haddii uu gabadhiisa jecel yahay inuu soo raaca iyaga, isagoona si dhaqso leh kusoo raacaya. Waxaana loo sheegayaa in uu gacanta usoo geliyo Number 6 si gabadhiisa ay uga badbaado, isagoona islamarkiiba la hadlaya ciidamadiisa una sheegaya inay usoo xirxiraan Number 6, balse Number 6 ayaa ogaanaya shaxda isagoo iska celinaya. Halkaasina waxaa ka dhacaya dagaal aan waxba la isku reeban, halka diyaaraddiina ay ku burburayso hawada sare. Dagaal badan kadib, Number 6 waa uu badbaaday, wuxuuna joogaa dalka Turkey. Wuxuuna aadayaa dhinaca iyo qof sameeya baasaboorada feega ah si uu u samaysto baasaboor uu uga baxo waddanka, balse ninkii ayaa khiyaamaya, halka Number 6 ay ku adkaanayso inuu kasoo baxo godka. Sidoo kalena waxaa goobta imanaya ciidamada Loud oo isagoo hogaaminayo, waxayna baadigoobayaan ninkii, balse ugu dambeyntii markii uu diido inuu soo saaro ninka ka hor inta aanan la siinin lacagta, waxay tooganayaan ama ay laqsiinayaan 2 xabo oo kaniiniga hurdada ah. Intii ay baadigoobayeen Number 6, isagana Number 6 ayay u suurtagelaysaa inuu kasoo baxo godka isagoo mid u ugaarsanayo dhammaan ciidamadii Loud. Ugu dambeyntii Loud isagoo isku dayaya inuu toogto ama uu qabto Number 6 ayaa waxaa dhinaca dambe uga imanaysa. Waxaan intaa kadib dib ugu noqonaynaa 2 sano ka hor, Number 6 oo u ah ilaalo khaas ah gabadhii la afduubanayay bilowga hore ee filimka. Meeshaasi ayuuna ka bilaabanayaa familkan jacaylkooda. Waxayna intaa kadib ku heshiinayaan inay isgarab istaagaan, waxayna raadinayaan
hosbitaal si uu u helo goobta saxda ah ee ay ku sugan tahay gabadha, waayo waxa uu xiran wadno artificial ah halkaasi oo laga ogaan karo goob kasta oo ay ku sugan tahay. Wuxuuna intaa kadib ogaanayaa locationka saxda ah ee ay ku sugan tahay gabadha, isagoo isla markiiba u dhaqaaqaya dhinaceeda. Waxayna bilaabayaan inay si wacan u diyaargaroobaan si ay uga hortagaan ciidamada Lord. Waxaanay u suurtagelaysaa Lord number 6 inuu kala soo baxsado gabadha goobta, balse waxay iswajahayaan Lord face to face. Waxaana halkaasi ka bilaabanaya dagaal aan waxba la isku reebin, balse waxaa dagaalka ku gacan sarreynaya Lord isagoo bilaabaya inuu ku maqooriyo biyaha, halka number 6 uu soo xasuusanayo yaraantiisii isagoo aabihiisa uu biyo ku maqoorinayo wiilka isaga ka weynaa. Halkaasina ay ka bilaabatay cadowtinimadii uu qabay aabihiisa. Waxaan ogaanaynaa markii uu yaraa uuna jiray 7 sano inuu dilay aabihiisa, sidaasina ay tahay sababtii uu ku galay xabsiga. Isagoo intaa kadib meelkiisa helaya wuxuu dib u weerarayaa Lord, halkaasina waxaa ka bilaabanaya in uu ku gacan sarreeyo dagaalka number 6, balse iyagoo dagaalka ku guda jira waxaa imanaysa Sarah iyadoo laabta ka tooganaysa Lord. Halkaasina waxaan ku ogaanaynaa in Sarah ay aad u neceb tahay Lord, balse waxay lugta xabad kaga dhufanaysaa number 6 iyadoo u sheegayso inuusan isaga u qalmin inuu dhinto, balse uu u qalmo inuu xabsiga galo. Ugu dambeynna usbuuc ka bacdi, halka Washington DC uu ku jiro number 6 iyadoo ilaalo badani ay ilaalinayso, halka Danny uu gacanta ku dhigayo memory-gii isagoona jijibinaya amaba baabi'inaya caddayntii dhammaanteedba. Waxaana intaa kadib arkaynaa Danny iyo Sarah oo soo booqanaya number 6 iyagoo kusoo guda jira dhinaca wishka ayaa waxay ka wareegsanayaan xogta ku saabsan number 6, balse markii ay soo gaaraan goobta waxay la kulmayaan meel kasta oo burbursan iyo welibana number 6 oo hab goobtii ka baxsaday, isagoo u ambaqaadaya dhinaca iyo Virginia si uu usoo badbaadiyo gabadha, isagoona la soo baxsanaya gabadhii ciidamadii oo dhanna baabi'inaya. waxaana halkaasi noogu soo dhammaanaya filimkeenii maanta. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saartid, sidoo kalena channelka aad subscribe saartid si aad ula socoto muuqaalada maalinlaha ee halka soo gelin doono. Haddii aad xiiseynayso inaad heshid muuqaalo badan oo sidan oo kale ah, mahadsanid.